daris la noqo qofka alla ka cabsada waayo qofka ilaahay ka baqa waa qof nabadeed qalbigiisana waxa ka buuxda cadaalad iyo naxariis la hadal qofka ku ixtiraama waayo ixtiraamka waa furaha xiriir kasta oo wanaagsan qofka qiimeeya hadalkaaga iyo maamuuskaaga waa qof mudan in la socdo la tasho kan ku jecelka dhabta ah ma ahan erayo oo kaliya ee waa talo waa garab istaag iyo in qofka rajo ku muujiyo xilliga aad u baahan tahay garab saaxiibna ka dhigo qofka ku fahmaya waayo fahamka waa hadiyada ugu qaalisan ee qofka la siiyo qofka ku fahmaya xitaa marka aadan hadlin waa qof ka istaahila in qalbigaaga meel gaar ah ka dajiso kana fogow jaahilka waayo jaahilka wuxuu ka qaadayaa waqtigaaga nabadgelyadaada iyo horumarkaaga iskana jir inaad saaxiib la noqoto kuwa liita kuwa qalbiga adag kuwa alla aan ka cabsan oo aanan deeq iyo gargaarba lahayn saaxiib ka dhigo dadka wanaagsan kuwa qalbiga nadiifka ah kuwa kugu abaalmarinaya wanaag iyo niyad qurxoon kuwa kuu noqda iftiin marka dunida mugdi ama gudcur iska kaamujiso